بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل على وقت الصباح. يا. أنا سلام سرائي خطوة. مركو هراء. أنا هلكن ما تسوي كذا. وحنا مركو هراء نشوف كم هذا. سلام سأجيبين بعض الوجهات. إذا وقت خوفنا نعرف كل ما تفعل. يقول هذا ولي من بعض الصحافة كل الدول. إذا كنت وحنا السلام يا شعب الصومالي. ملك السويد وكيف شغل. ملك بديسة يدبديسة. هي مجال. وشغل يبغى فرشة. يبغى قراسي. يبغى عظم طلع. إذا كنت أنا أقول فيها اللي بعد نقول الجيمة. أنا شعب الصومالي. أنا كله وداقله. حكومة رهان. ومنفعة قائمة. حكومة الحورية. خطوات كم سيدة وحيدين. شعب صومالي. بقدر الجماعة الوقت. خسارات في الشعب بعد عين. أنتاس أنا عن بارينه. وأنا غفرنا وقفين. وأنا كحنا هاي. غفرنا وقفنا الله هذا هنا فعلنا. وفي خسارة وطوها خسارة سويترنا. هي مال. iyo xakuum inta ba xakuum la fuwaayay dad shacab hooyo ilkeedii yaraa lix xaruuro kale ayaa ku dhaawacmay guryo badan oo la sideed sagaal guryo baa ku burburay oo lagu dumiyey hantidii shirkadihii telecommunicationka ceel waaqiyada mar kale haddana oo salkan iyo guryoga lagu burburiyey waxaasoo dhan runtii waa xadgudub waana cambaaraynaya waxaan rabnaa halkan aan uga sheegno dowladda Kenya maanta laga bilaabo ciidamada dalka Kenya duqeyn kasta ay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan haliska AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo ay ku soo wargelin dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliska guud AMISOM ma fulin karaan wax duqeyn kuma la soo xadgudbi karaan taas wata magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday waxaa ka mid ah Xeelwa waxaa ka mid ah Alcadde waxaa ka mid ah Cawsqurun waxaa ka mid ah Dhadhaable xuduudaha waa garanaysaa magaalooyinkaas ku dhow gobolka Gedo xuduudaha u dhow dhan ayaa si xun loo waxyeelay aadaan u cambaarayna waana ka xunahay waana u tacsiileynayna intii gooryootay dhaawiciina wuxuu inoo jiifaa carruurtii isbitaallada ilaahay inuu boogeedayo yaan ilaahay u weydiinaya qodobka labaad waxa weeye arrinta ciidamada Soomaaliyeed ee dalalka dibadda tababarka ugu maqan sida la wada socotaan dunida dal kasta ciidamadiisa qaarna gudaha lagu tababaraa qaarna dalka dibaddiisa ayaa tababar loogu daro intii dowlad dhiska Soomaaliya uu bilowdayna nidaamka ama sunnahaasi saas u soo dalal badan ayaa ciidamada inoo tababaray oo aynu uga mahadcelinayna qaarna ilaa hadda inoo tababaraan qaarna mustaqbalkeenu rajeynaya inay inoo tababari doonaan laakiin waxaad moodaa in la siyaasadaynayo ciidamada ku maqan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqan sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa waa qof fara majuura qaangaara go'aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco ma jiro qof lagu qasbo inuu ciidan noqdo qof walba isagaa diyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa iyo naftiisa ku bedesho dhalinyarada go-aankaa qaadatay waa ku hambalyeynayna inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda lagaga sheekeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca waa tababarka ku maqan kuwaas inuu leeyahay arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horeba waa u sheegnay sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamada loogu maqan yihiin Eritrea ciidamada ka maqan yihiin horena waa u sheegnay qayb walba ka yihiin wadamada inoo tababara laakiin ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiya ma jiro laakiin shacabka Soomaaliyeed
inay arrintaas layaab ku noqoto waa ilaahay mahad beri dhaweydu bay ahayd markii laysku haystay qaybta liibi ee lalahaa ciidamada etoobiya qaybta liiga maraya maanta waxaan dafiraynaa in ciidamada soomaaliya aanay tixraac ma jirto ciidamada etoobiyana way ku filan yihiin dalkooda awood ahaan iyo tiro ahaanba way ku filan yihiin sababay soomaaliya ciidamo tixraac u jirtaa taasna waxaan rabaa inaan arrintaas si fiican uga hadlo والله مركي كواد إنه وقع مقلي وهم مركي سجالات وهم مركي طبلات مركز تنا وحين غطاه مركي بتشرين هو اللي وقع صوت هاي تدخل وبيون وبيون من هذا سياسيين تدريدي كما هلا طبعا هذا عيد المدي صوت هو السبحة روح الله تبارك أنت الله تبارك قابك الله تبارك وحيكتب حكتا ذلك لما خاطر لكن سياسيين كانوا واحد مودع إنه عشان ضد دور الشركة بكتير كان بين دور الشركة بكتير ويكسروا العلنية صعب صلاة وقارتين والله هذيك صعب ثم يسمى كوكب صعب كم هاي هذيك اللوطة مع ذلك تاني بتكشف أنا ما هذا عيا أقول على الليل حد بيجي كينيا ولي بيعرف هل سياسي وكهرباء هل سياسي ولا waxay u dhimanayaan carruurta maxaa loo dhaawacaya maxaa loo duqeynaya maxaa loo burburinaya hormuud laga rabaa maalmo maxaa sunta loo ma jiro ciidan dalkoodii u maqan oo dadkoodii u maqan oo la yaqaano oo tababarkoodiina dhammaado gebagabayba yahay ayaa maalin walba laga hadlayaa si looga mashquuliyo shacabka soomaaliyeed hagadaamada cadowga si shacabka soomaaliyeed looga jeediyo dhibaatada cadowga samaynayo dhibaatada shisheeyuu samaynayo xasuuqa ku socda xadgudubka ku socda dhibaatada ku socota si intaa looga jeediyo shacabka habeenkii waxaa loo tumaa asaanteeda maalin kasta oo xadgudub la sameeyo waxaa dadka lagu mashquuliyaa ciidamada turkiga inoogu maqan iyo ciidamada eritrea ku maqan iyo ciidamada inoogu maqan dalalka dibadda ee u soo tababaranaya difaaca waa shacabka soomaaliyeed inaan halkan uga bayaamiyo ciidanku wax la siyaasadeeyo ka weyn waa naftii dalka waa dhiiggii waa wadnihii riboodka UN-ka lagu soo celcelinayo waxaan aaminsanahay riboodka UN-ka inay facebookyada siyaasiyiinteena ka qaateen sababtee waxay leeyihiin waxaanu maqalna ciidan soomaaliyeed baa kusoo qabsana riboortiin intaasuu maqal UN wax infidhali soo cadaynan ma keeni waa maqlay wuxuu ku sii daray laakiin dowladda soomaaliya way doonaysa siyaasiyiinteenu ma soo qaataan inta dambe inta hore unbay soo qaadeen kadibna waa aayadda qur-aanka ahayd weylu lilmusallin waxay hoogay kuwa tukada intii dambaa laga reebaya aladiina hum can salaatihim saahuun haddii intaa laga reebo waxay noqonaysaa aayad ma kala dhinaacaysa marka waxaan isleeyahay riboodkan inta hore laga soo jaraya waa weylu lilmusalliinati oo intii hore laga soo jaray waxa weeye ciidamo soomaaliyeed waa intii hore loo sheegayay ee facebookyada siyaasiyiinta soomaalida ku qoraa unbay dalla soo qaatay riboodkii UN-ka lagu daray kabacdina waxaa laga dabageeyey dowladda soomaaliyana way beenisay taa macnaheedu waxa weye waxba kama jiraan riboodka UN-kana waxba kama jira waraaqna waanu qornay aanu arrintaa ku faahfaahinay waxaan ugu isleeyahay waxaa inaan shirkayga jaraa'id ku soo gebagabeeyo dalkeennu waa dal dhismaya baahida koowaadna wuxuu qabaa amni iyo ciidamo ammaan waxaan ku celcelinayaa siyaasiyiinteennu inay mar walba dhowraan dowladda caqabadkeeda shaqadeeda caafimaadka biyaha boqol ajendo oo kale oo laga hadli karaa jira waynu ka doodi karno waxaanu ka qabannay siyaasiyiinta kalena odhan karaan sidan si kasta qurux badan baa loo qaban karay laakiin waxaan ku celcelinayaa in ciidamada aan la siyaasadan meelay joogaanba ciidamada tababarka ku maqanna maadaama aynu mustaqbalka rabno ciidamadeennu inay ku filaadaan difaaca qaranka inaan la siyaasaday hooyooyinkana maalin walba laga ohinayana aan laga ohin maalin walba wiilal soomaaliyeed baa difaaca u taagan gobol walba taagan degmo walba taagan naftooda huray
laga dhaafo ayaan leeyahay etoobiyana ciidan soomaaliyeed uma baahna waxaan kaloo aaminsanahay in dad badan isku qaldaan haddii qof soomaaliyeed xitaa lagu arko ciidamada etoobiya soomaalida etoobiya degan waa qowmiyadda saddexaad ee etoobiya hadda maqla soomaalidu waa qowmiyadda saddexaad oromada ayaa ugu badan amxaaradaa ku xigta soomaalidaa ku xigta oo ah 10 milyan 7 milyan oo soomaaliyeed ayaa jooga etoobiya oo etoobiyaana oo dalka ku noola xuquuqda marka haddii aad aragto wiil soomaaliyeed oo meel jooga haddaad tidhaahdo waxaa laga soo diray muqdisho waa ayaan dab iyagana waxay ka qaadaysaa soomaalidii deganada etoobiyana xuquuqdooda way ka qaadaysaa oo ah qowmiyaddii ugu weyneeda saddexaad oo dalka iyagana ayaan xuquuqdooda laga qaaday oo aan roolkooda ay dalka ku leeyihiin dalkooda ku leeyihiin ayaan laga darfinin ma aaminsani waana ku celinayaa waahi ay u qabto etoobiya inay ciidan gurmada soomaaliya ka hesho iyo baahi maanta soomaaliya ay u qabto inay kaga qabsato intaasaan kusoo gabagabaynayaa waana ilaahay mahadii maanta waxaynu gelaynaa maalmihii xorriyadda 26 juun iyo 1 luulyo waynu dhawaan u diyaargaroobaynaa waxaan rabnaa qalbigeenna iyo shucuurteenna inaynu ku caarino oo ku abuurno waddaniyad dal jacayl iyo dad jacayl ilownana qaybsanka iyo qabiilka iyo qoqobka iyo kala fogaanta dowladnimada iyo qarannimadana aynu u hiilino calankeenuna aynu ku faarno maalmaha xorriyadduna ay shucuurteena ka muuqdaan ee soo socda aad iyo aad baa umahadsantihiin su-aaluhu weydiin furay ساعات وزير وفيه وعبد القادر اوكي waxaan ka codsanaa marka hore su-aalaheena inaad kaga jawaabto si waaqiciya maadaama hooyooyin soomaaliyeed oo ooynaya ilmina waddooyinkay taagan yihiin oo aadan maaragtay meelo kale aadin marka laga yimaado siyaasiyiinta adkaysan ee mucaaradka bannaanka jumeydiya ka hadlayo bal haddaad u jawaabi lahayd hooyada joogta sayidka haddaan ku soo maray ooynaysay carruurteedii la maxaa diidan dowladda soomaaliyeed in carruurta haddii aysan jirin wararka la sheegaya in warbaahinta aad geysaan xitaa haddaadtan madaxa bannaan geeweysaan midda dowladda inta kaamka tagaan ay soo arkaan maxaa diidaya inaan su-aashaas ka jawaabto waan jeclaan lahaa arrinta la xiriirta marka laga yimaado siyaasaynta maxaa waalidiinta ula hadli lahayd inta hor tagtaan madaxweynaha iyo xukuumadda inta u tagtaan meelaha ay joogaan oo haddaan ku soo mara askartu hor taagan tahay maan la hadashaan markaa warbaahinta halka kula hadlaysaan cabdilqaadir waa waxaan malanaya su-aal maaha waa talab qaado taladaana waa tixgelinaynaa waana qaadanaynaa in warbaahin la geeyo warbaahinta dowladda la geeyo waxaan malanaya waa soo jeedin ku mahadsan tahay meesha carruurima joogto waa ciidan military ciidan military oo qofku iskii u doortay waanan aaminsanahay in ciidamadu ma aqaan sababta hadda loo hago military waa dalaynu inagu dhisnay waa dalaynu inagu halgankiisa ka soo qayb qaadanay waa dalaynu inagu xoraynay waa dal aaminsan soomaaliya lahaanteed inaana jirin sababta looga dhigayo cunfiga looga dhigayo ma qabo waxaan xasuustaa waagii hore ciidamada soomaaliya la dili jiray afar sana loo dili jiray siberia ama huunaan ama hafaana ama usbekistan oo 4 sano ka bacdi qofkii isagoo tababar soo qaatay uu soo noqon jiray cid ooyeysa iyo cid qalbi jabsanna toona ma jirin laakiin xog baa lahay wasiir oo ku soo wada waa wax la siyaasadeyn maalin walba ciidamadeenu meelo kale joogaan lama siyaasadeyn waxaad moodaa in gacan shisheeye arrinta ku jirto taladaadaana waa qaadanaynaa waana qurux badan tahay sababtoo ah xeryo military bay joogaan meelo ramiida bay joogaan meelo lagu tababaray joogaan waana dal kasta waa sidaa kuwa turkiga jooga kuwa uganda jooga kuwa jooga eritrea shacabka ma dhex joogaanoo meel inta kamarada la iska qaad qaato oo dee waad garanaysaa ciidan iyo standardkiisa waxaaba ka mamnuuca xero ciidan in kamarad laga soo baxo 5 mayl baa waxaa ku qoran kamarad lalama soo geli karo adaa ma fahamsantaa laakiin adiguma waxaad u malaynaysaa intaas oo ciidan ah baa war xumi dugsi ma fadhiyo waa markii sagaalaad ee inta arrin Kenya samaysay leysiri ku qariya beero the bad news wixii la odhan jiray warka ku qariya dabeedna tan la xoqay marka aad baad u mahadsan tahay wasiir magacayga Ismaaciil Bariise Soomaaliya ka wadan ka socdaa Kenya haddii mar kale ay sameyso duqeyn iyadoo aanan idin soo wargelin dowladda Soomaaliya iyo weliba Amazon maxaa tallaabahoo idinkaga aadan dunidu bariis oo sharci bay leedahay international law waxa la yidhahdaa
dal iskaga xadgudbi karaa ma jiro haddii dal iskaga xadgudbi karaya uu jirayo duniduba ma jirteen waxa shaqeeya waa qaynuun dalka la yidhaahdo Cuba iyo dalka Maraykanka waxay isu jiraan Havana iyo Miami iftiinkooda ay soo noqdeen 60 sannadoodna col bay ahaayeen diyaarad Maraykanna ma dulmarto sababtu waa maxay kan Cuba uga dhigan tahay waa 1% difaaca Maraykanka haddana sharciga dunida u diidaya diyaarad Maraykan inay dulmarto innagu laba dal oo isku mid ah isku awooda ayaynu marka waxaan rajaynayaa in loo hoggaansami doono awaamiirta dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ساعات وصل ويونيفرسال سؤالشان كويدينا waxay tahay dawladdu markas inay beeniso tira carruurtaasi ama dhalinyaradaas degan Eritrea iyagu ma aragta kuma dhiban dagaalkii TPLF iyo Ethiopia u dhaxay waxaan beenahayn dadka aad tusi kartaan ma jirtaa maadaama sir qaran marka leedahay macnaha xitaa adduunka dhama ka hadlay UN-ka ka hadlay taas ma sir qarana su'aashii hore ku dhaaftay jawaabtii hore statement-ka ma laga su'aash ka jawaabay uu soo wadaa waad soo daahday waxaan report-kii UN-ka qodobka 20aad buu ku qornaa dad akhriday UN report-kii waxay yiraahdeen waxa la sheegaya Human Rights Report-igu wuxuu maqlay in ciidamo Soomaaliyeed ay Aksum dul fadhiyaan oo tababar joogeen kari horta saas ay ugu qoran tahay laakiin dawladda Soomaaliya way beenisay marka waa ku soo wada marka report-ka waxay ka qaateen oo iska garanayaan waxaan Facebook-yada ku qorano ayuu bay ka soo qaateen dan dabadna wixii baa lagu hagaajiyay report-kii hawsha dagaalkii ka dhacay waa sidaan ay sheegayo ciidamadii tababarkoodii waa gabagabo marka waxaan ka baqayaa maalinta yimaadaanna in la yidhaahdo maxay u yimaadeen maxay tababarka usoo dhamaysteen maxay u yimaadeen indhaheenno shanaynu arkayna aad baanu ugu mahadnaqaynaa dawlad kasta oo xilligan aynu ku jirnay in amniga u baahannahay ciidan inoo tahay runtii waa lafdhabar ciidamada aynu hadda ku joognaana waxa ay ku yimaadeen tababarkii gudaha iyo tababarkii dibadda iskaashada waxaan kaloo rajaynayaa one day inaynu kaba maarmi doono inaynu dal shisheeye ciidan u dirno inaynu dal shisheeye ciidan u dirno inoo soo tababara oo macallimiinteennu ay 90% ku filaan doonaan takhasusun loo tegi doono dalalka shisheeye aad baad mahadsantahay سعد الوزير وعبد الله محمد شقدون SPC كسولا waalidiintan cabanaya maxaa diiday inaad la kulantaan oo aad ka dhaadhicisaan sida ay wax u jiraan oo aad u qalbi la'ahay horta arrintu waa arrin waalidiintuna kolleyba telefoonadooda waa la hayaa si loola xidhiidhaa jirta si loo maamulaa jirta laakiin waxaan aaminsanahay in ay tahay arrin la siyaasadeeyo lagu beego xaalad weli miyaad aragtay siyaasiga Soomaaliya oo ka hadlaya arrimaha xasuuqa dhacaya iyo Kenya ma jiro hal askarina inagama dhinto hal askarina dhibaato inagama dhacdo ciidamadeennina oo inoo caafimaad qabaan iyagoo socda oo tababarana waynoo imanaya laakiin waxaan oo dhami waxa weeye waa wax la yidhaahdo daaybe in la duwo dhibaatooyinka shisheeyo ay dalka ku hayaan ciidamadeennuna waynoo soo socdaan waalidiintana meelay joogaan waalidiintu hal degmo ma joogaan hal gobol ma joogaan hal state ma joogaan every corner stateyada dalka oo dhan bay ka yimaadeen every stateyada dalka oo dhan inay ciidamadu ku kooban yihiin waxaan ugu qalbi qaboojinayaa in wiilashoodu fiican yihiin ay caafimaad qabaan talooyinka saxaafadda iyo talooyinka waxgaradkana waa tixgelinayna waan idiin sheegay xayaa militariga kamarada lama galo dee waa ogtihiin 5 kilomitir ka hor baa la dhigaa oo mamnuuc lama sawir lagama qaadi karo kamarad lama dhigo duruufahaasina iyaga laftoodana waa tixgelinayna laakiin tan kalena waalidkana in lala xiriiro iminka wada ilaadano inagu waxa laga yaabaa ciidamadu jannada ay maraan baa jirta oo ka wada hadlaan oo kuma oran karo lama hadlo mara ku oran karo waa lala hadlaa wixii waa arrin ciidan laakiin waxaan kuu sheegayaa ciidamadu way nabad qabaan loogamana baahnayn inay dagaal galaan loogamana baahnayn inay sameeyaan askari dhibbo ku jira Ethiopia oo haysata inta waqtiyada tara u malayn maayo Eritrea difaac ugama baahna ciidanka loo difaaca talooyinka laakiin saxaafadda iyo waxgaradka waa tixgelinayna waxa la wixii suurtagal ah hooyooyinka dalkoo dhan joogan geesi iyagana wax lagu qalbi qaboojinayna saraakiisha maqan iyo ciidamada tababarka ku maqan iyagoo faraxsan tababaran kalsooni lagu qabo oo dalkooda u diyaara inay imanayaan
waana mar walba in la kala saaro ciidanka iyo siyaasadda ciidanka iyo siyaasadda xildhibaanku waana yimaadaa waana baxa laakiin askarigu ilaa maalintu ciidanka ku biiro ilaa iyo maalinta uu ritaayar noqonayo ciidanku ka mid oo wax jiraya oo joogaya oo dalka u diyaaray difaaciisa maalin walbana heegana waa difaaca dalkiisa waxaan rajay dhammaanteen inaynu ciidanka qalbiga kala jiro final question waxaan rabaa su-aasheeda inaad si saxa uga jawaabtid su-aashaan ku weydiinaya waxay noqonaysaa dabcan adigu waxaad sheegtay in gabagabo uu marayo tababarka ciidanka waalidiinta qaarkood waxay sheegayaan ciidamadu carruurtooda inay dagaalka ku dhintaan haddii ciidamadaas ay soo laabtaan waalidiintiina carruurtooda ay waayaan qaarkood mas-uuliyadda yaa qaadaya su-aashaasi waa kabadkasiiska waa su-aal qof askari ah askari dagaal askari soo ma tago hadda gobolada ma tago xuduud ma tago askarigu wuxuu marka ugu horeysa ciidanka qoranayo marka ugu horeysa caawa haddaad askari qoranayso caawa haddaan aniga askari qoranayo shaqada ugu horeysa qor inaan dalkayga u dhiman inaan ciiddeeda u dhiman inaan sharafta karaamadayda u dhiman inaan xalalkayga individual case qof ila caqli baynu leenahay cilmi baynu leenahay qof baa dhintay iyo mas-uuliyaddiisa qaadaya ta anna ima weydiinaysid baan malaynaya adiguna ina kuma weydiin waan dhamaynayaasu adna kuma weydiin karo qof baa dhintay mas-uuliyaddiisa ayaa qaadaya laakiin waxaa la qaadayaa welbeing ciidanka caafimaadkooda noloshooda cuntadooda badqabkooda jiritaankooda yani ciidanku waa ciidan isku dhan laakiin qofku isagoo halkaa taagan oo wadada maraya buu dul istaagi karaa waan ku dhamaynaya t v baad ka shaqaysaa haddii la yidhaahdo t v-ga weriyihiisa oo iskii hadduu doono intuu u xanuunsaday dhibaata ugu dhacday iyo mas-uuliyadda qaadaya taasi waxaan malaynaya inaanay dowladdana qaban shacabka soomaaliyeedna qaban ciidankana aanay qaban laakiin waxaan u ballan qaadayaa shacabka soomaaliyeed waxaan u ballan qaadaynaa dowlad ahaan ummadda waxaan u ballan qaadaynaa muwaadiniinta waxaan u ballan qaadaynaa ciidamada ay ka tageen ciidamadii tababarka yimid gabagaba yahay dhawaanna ay iman doonaan sida ugu dhaqsaaba marka baaritaan loo soo xiray xafladooda dhacdo way imanayaan de wax qarsoomana ka weyxday waana waxaan rajaynayaa in aynu mustaqbalka ka maarmi doono tababar dabadeed ciidamadooduna isku filaan doonaan cadowgana aynu ka adkaan doono soomaaliyana ay guulaysan doonto aad iyo aad ba u mahadsantihiin xorriyad wanaagsan iyo doorasho wanaagsan asalaamu calaykum kaasi waa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Ismaan Dube oo ka hadlaya arrimo la xiriira